dadku waxay aad u hadalhayaan mugdi badanina kaga jira qaabka uu soo burburay ama lagu kala tagay shirki ka socday magaalada Kismaayo bal noo faahfaahi qodobada sababay in shirka lagu kala kaco shirki horta wax burbur la yiraahdo ma jiro oo waatii uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdishaciir Sharmarke waa la wada hadlay go'aan kama dambaysa lama gaarin oo heshiis ah oo la saxeeyay ma jirin laakiin dabcan markii la isugu yimid aragtiyo kala duwan baa la qabay fikrado kala duwan baa meesha la geeyay laakiin wada hadal dheer ka bacdi dabcan iyadoo oo heshiis kama dambaysa aan la gaarin baa laga soo tagay laakiin mar walba wada hadal loo waan heshiina weeye in la soo yimaado la wada hadlo oo farqiga la yareeyo oo gaabka dadka u dhaxeeyahay la soo yareeyo oo fikrad isku soo dhaweeyo wax meesha ku jira ahaayeen warar soo baxay ayaa sheegaya in Puntland ay ogolaatay 4.5 oo dadku ay waliba deegaan ahaan Puntland ay aad u diidaneed laakiin arrimo ku saabsan aqalka sare la isku mari waayay maxaa ka jira arrimaha wax ka jira ma jiraan aqalka sare aqalka hoose loo wax isku xiran weeye midna gaar looma dhisi karo midna gaar looga gorgortami karo wixii la ogolaanayo waa wax isku xiran oo package oo qofo wuxuu ka tanaasulaya noqon doonta kama dambaysta mustaqbalka laakiin waxa la leeyahay Puntland ba ogolaatay aqalka hoose marka aqalka sare lagu gorgortamayaa waxaas waa iska fasiriye weeye wax jirana maaha warqad cadeynana waa ka soo saarnaa hadii meel walba position bay markii aan sii deynay waad aragteen oo hadii aan wasaadyada ka arkaysaan ama soo official cidda ay khusayso ugu dirnay marka waxaas wax jira maaha madaxweyne maxay yihiin qodobada aad ka beedisantahay anagu waxaan rabnaa Soomaaliya inay socoto Soomaaliya horumarto Soomaaliya inay ka gudubto nidaamka qadariga ah oo muddada soo dilowday oo wad garanaysan oo 4.5 waxa lagu soo bilaabay artar 2016 sano maraysa maanta marka dawladnimada isbeddelka Soomaaliya ka soo dhacayay ee wanaagsanaa oo laga baxay civil war ki dagaalkii Soomaaliya ahliga ah ee qabqablayaashii dagaal dawlad ku meel gaar dawladda yaani leh sharciyada iyo full governance oo dhab ah in waxaan nidaamka dawliga hayna inuu la jaan qaado ayaan rabnaa marka meesha la joogay lama joogi karo iyadoo oo Soomaalidu ay socoto gudubtay marka waxaan rabnaa nidaam wanaagsan dadku heshiis ku yihiin matalaad shacbi oo dhab leh in Soomaaliya ay hesho wixii kale oo Soomaaliya dhexdeeda ka heshiinayso oo ah marka xal la moodo dabcan waa laga hadli karaa laakiin anagu fiirka aan qabna ka way ma jiraan qodobo aad ka tanaasulsheen oo markii hore adiidaneedeen shacbiga Puntland fartiin bay nafareen mowqifkoodana waa noo sheegeen waa noo igmadeen wixii Soomaali wanaageeda iyo Soomaali horumarkeeda inaan dadka Soomaalida oo waxaan wax nagala dhaxeeyaan aan wax wadaagno inaan kala hadli karno wixii danta guud ee Soomaaliyeed ah loo arko in markaasi waxa la iska yiraahdana dadka dawladna wakiisheen oo ayaga wakiil u ahayn marka way imaanaysaa in boqolkiiba boqol qof walba wuxuu rabo uu sahli doonin way imaanaysaa in mowqifyada qaarkood oo in wax la iska yiraahdo la iska soo dhawaado laakiin meesha hadda wali ma joognaba waxa weeye waxaan u baahanahay in Soomaalidu waxa la yiraahdo zero sum game qola aanay boqolkiiba boqol hesho qolana ay zero la diro oo beesha ka baxdahay suurtagal maaha marka waxa weeye in waxaasna wixii dagaalada ahriga ah iyo shidada Soomaaliya dhibta keenay weeye lama sii wadi karo marka waxa loo baahan yahay in la sii yimaado la wada hadlo tanaasulka dhan walba ka yimaado hal dhinac kale kama iman karo waxa wararku sheegayaan in dhawaan aad ka qayb gali doontaan shir kale oo ka dhici doona magaalada Muqdisho ma waxaad saadaalinaysaa ama jira oo lagu sheegay in qodobo ku ka duwan lagu wada hadli doono shirkaas shirka hadda wax official hadda way xaashiyo oo invitation soo gaartay ma jirto laakiin waa maqlay inuu dhici doono waa tageynaa shirka fikirkeena waa geynaynaa waxa qabnaa miiskan saarayna ka sheegaynaa dabcan waxa laga hadlayaa ajendayaasha hore weeye ajendahan muddo soo socday July sanadkan buu soo bilowday waxa muddo ilaa 5 bilood ku dhawaad dadka ka bandeen soo socday weeye processkii hadda aan ka hadlayno ah dawlad u sameynta iyo xukuumadaha iyo electionka iyo doorashooyinka dhici doona 2006 qaabku ku imaan lahaa way kulay wixii ayada la sii ambaqaadayaayo la sii wadona